halkaan naga daawanaysid waa Mawele Channel. Videoga like saar, sidoo kalena channelka subscribe dhaho si aad ula socotid wax waliba aan soo dhigno. Mahadsanid. Assalaamu calaykum, soo dhawaada asxaabtayda. Maanta waxaan idin hayaa qiso aad u xiiso badan. Magacaygu waa Aadam, waxaana jiraa 25 sano. Waxaan rabaa qisadayda in aan idinla wadaago. Waxaad nala socotaan qisadayda in ay tahay mid dhab ah oo hadda ka hor igu dhacday. Haddaba ina keena oo daawasho wacan. Waxa ay qisadayda ka bilaabatay gurigayga dhexdiisa. Sababtoo ah dhibaatada ugu weyneed ee haysata ayaa waxay ahayd inaanan haysanin wax walaal ah. Yacni waxaan ahaa qof keli ah oo aanan haysanin gabar la dhalatay iyo wiil la dhashayba. Sida awgeed waxa ay taa igu ahayd murugo aad u weyn. Waxaa jirtay laakiin asxaab kale ee aan lahaa. Meel walibana waxaan ku lahaa asxaab. Waxaan xaafadda ku lahaa asxaab ii gooni ah. Sidoo kalena iskuulka waxaan ku lahaa asxaab ii gooni ah. Kuwaasi oo Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala qalbiyadooda igu abuuray jacayl aad u fara badan. Laakiin waxaa jiray hal saaxiib oo aan ku dhex lahaa asxaabtaasi faraha badneed. Waxaana magaciisa la yiraahdaa Amjad. Amjad ma uusan ahayn saaxiibkayga oo keliya, mararka qaarkood waxa uu ii buuxin jiray booska walaaltinimo. Mar waliba labadeena waan wada ciyaari jirnay, meel waliba aan aadayna waa uu ii raaci jiray. Waalidiinteeda markay arkaanna aad ayay ugu farxi jireen. Intaan dhammaynin qisadeena, hal mar aan idin dhibo videoga like saara, sidoo kalena channelka subscribe saara. Haddii aad saarteenna waad mahadsantihiin. Waxaa dhacday aniga iyo saaxiibkayga Amjad in aan soo weynaano oo aan soo gaarno heer jaamacadeed. Waxaana ahayn kuwa isla jooga intaasi oo idil waagii aan yareen ilaa aan ka soo gaarnay heerkani ee hadda aan joogno. Balse waxaa jiray waxyaabo dhif ah oo mararka qaarkood dhici jiray. Mararka qaarkood waa aan isku xanaaqi jirnay oo waan isdagaali jirnay. Balse saaxiibkayga Amjad waxa uu ahaa mid nervous ah oo qayli badan. Laakiin sida ay tahay aniga mar waliba waxaan isku dayi jiray in aan u dulqaato. Sida awgeed anigu waxaan ahaa qof asiga cagsigiisa ah oo dadka oo idilna ay ku yaqaanaan in aan ahay qof degan oo aanan dhib badnayn. Taa waxay keentay in Amjadna aan ugu dulqaato dhibaatada uu igu hayay ee mar waliba xanaaqa ahayd. Waxaa dhacday ugu dambeyntii in aan ka qalin jabinay jaamacadda. Waxaana ku biirnay shirkad oo aan ka wada shaqaynaynay aniga iyo saaxiibkayga Amjad. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah anigoo shaqada xoogaa ku caajisay oo banaanka kafee ku cabaya in aan arko saaxiibkayga Amjad oo la taagan laba nin kale oo wejigooda igu cusub yihiin, kuwaasi oo lahaayeen waxyaabo kale oo gaar ah. Yacni wax ay u ekaayeen dad tuuga ah oo kale. Waxaana arkay saaxiibkayga Amjad oo wejigiisa ay ka muuqato farxad aad u fara badan. Waxaana isweydiiyey talow waa maxay waxa uu saaxiibkayga Amjad uu sidani oo idil ugu farxay. Waa in aad soo weydiisaa. Markii baan soo baxay waxaana dhahay saaxiib, nimankan yay yihiin, aniga hore kuma aanan arkin. Sidoo kalena waxaan rabaa in aad ii sheegtid waxa aad sidaasi oo idil ugu faraxday. Markiiba inta cabsaday ayuu ii jawaabay. Waxa uunay dhahay waxaasi muhiim ma ahan, hana isku mashquulinin. Waxaana sidoo kale ogaataa haddii aad saaxiibkayga tahay ma ahan macnaheeda in ay tahay wax waliba ee ii gaar ah in aad faraha la soo gashid. Aad ayaan u naxay sababtoo ah kama maleysanaynin saaxiibkayga hadalladaasi oo kale in uu igula hadlayo. Waxaan dhahay saaxiib, aniga kama filaynin sidani in aad igula hadlaysid. Mideeda kale waxaan ku weydiinayaa maxaa ku jiro boorsadaasi. Waxaan doonayaa in aan arko. Markii waxaan isku dayay in aan dhankeeda aado, balse hal mar ayuu si awood badan dhulka iigu tuuray. Aad ayaan u naxay. Kadibna waa uu iga tagay. Weligeyga gacan ma uusan ii qaadin saaxiibkayga Amjad. Waxaana ogaaday arrinta ka dambeysay in gacanta uu igu qaado in ay tahay arrin aad u muhiim ah. Intaasi kadib waan soo baxay
waxaana imaaday xafiiskayga. Mise waxaa wax yar kadib ii imaaday maamulka shirkadda. Waxa uuna i dhahay saaxiibkaaga Amjad baryahani si toos ah uma imaado shaqadiisa. Wixii loo dirana si fiican uma qabto. Haddaba anaga waxaan go'aansanay markii aan shirnay in gebi ahaantiisaba aan ka ceerinay shaqada. Arrintaanina iga gaarsii saaxiibkaaga maadaama aad tahay qofka ugu dhow asiga. Intaasi kadib markuu ii sheegay aad ayaan u naxay. Waxaan ogaaday saaxiibkayga Amjad in baryahani uu isbedelay. Waxaan isku dayay in aan maamulka kala hadlo. Waxaan dhahay maamule waan ku baryaa markani digniinsi. Waxa uu igu jawaabay maamulaha maya lagama yaabo go'aankayga in aan dib ugu laabto. Intaasi kadib waan soo baxay. Waxaana imaaday xafiiskii uu ka shaqayn jiray. Waxaana arkay Amjad oo maqan. Kadib waxaan wacay lambarkiisa. In badan ayaan ku celceliyay oo waa uu iga qaban waayay. Markii dambena waxaan u diray fariin asiga ku socota. Waxaana u sheegay in shaqada laga ceeriyay. Intaasi kadib waxaa dhacday aniga in aan shaqadayda hore iskaga sii wato. Muddo maalmo ahna ma aanan arkin saaxiibkayga Amjad. Kadib waxaan isdhahay waxa uu ka murugaysan yahay maadaama laga ceeriyay shaqadiisa. Intaasi kadib habeenada ka mid ah anigoo hurdaya ayaa waxaa soo dhacay moobilkayga. Mise markiiba haddii aan fiiriyay waxaan ogaaday in uu yahay saaxiibkayga Amjad. Kadib waa aan ka qabtay. Waxaan dhahay Amjad saaxiib ii waran. Waxa uu igu jawaabay saaxiib waxaan kaaga baahanahay caawimaad. Waxaan kuu soo dirayaa ciwaanka meesha aan joogo. Waxaan rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan in aad igu imaadid. Waxaan maqlay saaxiibkayga Amjad ooba oonaya. Waxa uuna i dhahay saaxiib adiga oo kaliya ayaa i caawin kartid ee ii imow. Markii waxaan dhahay saaxiib waxba ha ka cabsanin sida ugu dhaqsiyaha badan aniga ayaa kuugu imaanaya. Markiiba gaarigayga ayaan soo qaatay. Waxaana soo aaday ciwaanka uu ii soo diray. Mise meeshiiba haddii aan imaaday waxaaba arkay meel wada mugdi ah. Balse haddii aan wax yar socday waxaan arkay gaarigiisa oo meesha yaala. Markiiba gaarigiisa ayaan koray. Waxaaba arkay saaxiibkayga Amjad oo qoslaya. Aaway ninkii oonayay markii uu ila hadlayay. Waxaan bilaabay in aan xanaaqo. Welibana aad aan u xanaaqo. Waxaan dhahay sababta aad sidan igu gashay waa maxay. Waxaan u maleynayay in uu igu sameeyay barank. Waxaan dhahay waxaad iga kala goosay hurdadayda. Xili habeen saqdhaxa ay tahayna ayaad halkani i keentay. Sabab ayaad sidan u samaysay. Waxa uu bilaabay in uu igu jeesjeeso. Waxaana dareemay saaxiibkayga Amjad in uuba si kale u hadlayo. Yacni waxa uuba cabay daraagis. Aad ayaan u naxay markii aan arkay saaxiibkayga Amjad oo sidan isku bedelay. Waxaan isla markiiba soo xasuustay hadda ka hor maalintii aan arkayay labadii nin la taagneed in ay falkani dhexda ka gelisay. Kadib waxa uu igu soo fiiriyay indha cabsi badan. Waxa uuna dhahay bal fiiri kursiga dambe maxaa saaran. Haddii aan fiiriyay aad ayaan u naxay. Waxa saarneedna waxa kale ma ahan waa gabar maskiin ah oo meesha lagu soo xirxiray. Waxaan dhahay dambiilo baa tahay maxaad ku samaysay gabadha. Miyay dhimatay mise waa ay miir dawoolan tahay. Waxa uu igu jawaabay saaxiib isdeji. Weli ma aanan dilin oo waa ay miir dawoolan tahay. Waxaana kugu wacay wax kale ma ahan in aad ila dishid ayaan doonayaa. Markiiba waxaan ugu jawaabay macquul ma ahan arrintaasi in aan sameeyo. Sidoo kalena lagama yaabo in aan garab ku siiyo adigoonan ii sheegin gabadhani qisadeyda. Markiiba waxa uu bilaabay in uu igaaga sheekeeyo qisadii ka dambeysay arrintani. Waxa uu dhahay markii shaqada liiga soo ceeriyay waxaan noqday mid aanan lacag haysanin. Sidoo kalena aanan awoodin in uu iibsado daraagis. Intaasi kadib maalin maalmaha ka mid ah waxaan soo qaatay gaarigayga. Mise anigoo wada maraya ayaan waxaan arkay gabadhani oo wadata dhar aad u qurux badan oona qaali ah. Markiiba gaariga ayaan u joojiyay. Waxaana dhahay soo raac. Markiiba gaariga ayay soo raacday. Ayadana waxa ay moodeysay in uu taksi yahay. Kadibna sanka ayaan wax ugu buufiyay. Waxaana ka qaatay wixii lacag ahayd ay haysatay. Haddana waxaan kaa doonayaa in adiga aad garab iga siiso sida aan u dili lahaa. Sababtoo ah waxaan ka cabsaday in ay booliska igu dacweyso
haddana waxaan kaa rabaa in adiga aad gaariga ii kaxayso maadaama aanan awoodin in aan wado. kadib waxaan ugu jawaabay, saaxiib adiga waa aad waalatay, adiguna ma tihid amjadkii saaxiibkaygii hore ahaa, haddaba maxaa kugu kalifo waxani oo idil? waxa uu igu jawaabay, hadalka badan yaree ee gaariga ii wad, waxaadna igeysaa meesha aan kuu tilmaamayo. markiiba waxaan ku qasbanaaday in aan wado gaariga, waxaana imaanay meeshii uu ii tilmaamay, mise waxa uba ahaa guri aad qadiim u ah, yacni guri waa hore la dhisay. kadib waxaan soo qaaday gabadhii xirxirneed, waxaana keenay qol uu ii soo tilmaamay, balse aniga raalli kama ahayn waxa uu sameynayo saaxiibkayga amjad. kadib waxaan kiciyey gabadhii, markiiba waa ay soo kacday, waxa ayna bilowday in ay ooso, waxa aynii dhahday, waan ku baryaa waxaad doontid qaado, xitaa wixii lacag ah aan watay wada qaado, laakiin ii ogolow oo keliya in aan dib ugu laabto carruurtayda iyo nolosheedii hore. kadib waan fikiray, waxaana go'aansaday in aan badbaadiyo. wax yar kadib waxaan dhahay, haddaba haddii ay sidaa tahay, waxaad ogaanaysaa in aan ku badbaadin doono, balse adigu waxaa lagaa rabaa in aad isdejiso. intaasi kadib waan ka soo tagay. qolkan waxaa imaaday saaxiibkaygii amjad oo wata biskoolad. gabadhii ayaa si daran u qeylisay, markiiba anigana waxaan kaga imaaday gadaal, kadibna feer ayaan ku dhuftay oo waa uu mir daboolmay. waxaana ogaa in uu dilayo gabadhani maskiinta ah ee aan waxba ka sameynin. intaasi kadib waxaan soo kaxeeyey gabadhii meesha joogtay, waxaana u soo kaxeeyey dhanka iyo gurigeeda. markiiba waxaan keenay gurigeeda ay ii sheegtay, kadibna waa ay ii mahad celisay maadaama aan wanaag badan u sameeyey. intaasi kadib waxaan soo aaday gurigeyga. weligaygana kuma fikirin saaxiibkayga amjad in aan gacan u qaadi doono, balse danta ayaa igu kaliftay, taa ayaana sababtay. intaasi wixii ka dambeeyey shaqadayda ayaan iska sii watay. muddo isbuuc ah ma aanan arkin amjad, balse maalin maalmaha ka mid ah anigoo shaqada dib uga soo laabtay ayaa waxaan arkay gaari xawaaro sare ku socda oo gadaashayda socda. markiiba waxaan isku dayay in aan ka cararo, waxaana ogaaday gaarigaasi inuu aniga ii dan leeyahay. waxaana markii dambe ii suura gashay in aan ka soo dhoonto, waxaana imaaday gurigeyga. balse waxaa su-aal ah, waa kuma qofkani isoo daba dhiganaya, rabana inuu idilo, anigu malihi wax cadow ah. intaasi kadib maalin maalmaha ka mid anigoo gurigeyga jooga ayaa waxaa ii soo dhacday fariin, waxa ayna ahayd, mar dhexdaasi waad naga badbaaday, mana laga yaabo in aad iga badbaadid, waxaana kuu ballan qaadayaa in aan ku dilo mar dhow. waxaana ogaaday inuu qofkaasi yahay amjad, waana aamin waayey inuu yahay amjad qofkii rabay inuu idilo. haddaba macquul maahan in ay ka suurowdo saaxiib yaraanteennii ilaa aan ka soo weynaanay inuu gacantiisa igu dilo. intaasi kadib waxaan isku dayay in aan in badan waco, balse waa uu iga qaban waayey. mar weliban waxaan u diri jiray miseejyo ama fariimo, waxaana markaasi rabay in uu fikirkiisa wax ka bedelo, balse maalin weliba asigana waxa uu ii soo diri jiray fariimo kala duwan, kuwaasi oo aad aan uga cabsan jiray. waxaana ka mid ahaa inuu idhihi jiray, maalintay ahaataba waa aan ku dili doonaa. markii dambe waxaa aad igu soo badatay fariimihiisa ee ku saabsan hanjabaadda dilka ah. markii dambena waxaan ogaaday ninkani inuu rabo inuu idilo, waxaana go'aan ku gaaray nafsadeyda in aan badbaadiyo oo arrintani aan la socodsiiyo booliska. kadib waan soo baxay, waxaana soo aaday saldhigga booliska, waxaana u sheegay saaxiibkayga amjad inuu u baahan yahay inuu idilo. sidoo kalena waxaan uga sheekeeyey sida ay wax weliba u dhaceen, gabadhii aan ka badbaadiyey iyo ciilka uu ii qaaday. kadib waxa ay dhaheen, anaga ayaa ku badbaadinayno. markiiba guriga ayaan imaaday, waxaana bilaabay in aan si fiican u fikiro, balse markii dambe waxaa ku soo dhacday maskaxdayda fikrad aad u wanaagsan, taasi oo ah amjad in aan meel ku ballamiyo, kadibna booliska gacantooda aan geliyo. waxaan u diray fariin taasi oo ah, saaxiib waxaan doonayaa in aan kula kulmo si markaasina aan kuu raaligeliyo. markiiba meel ayuu ugu balamiyey, haddii aan meeshii tagayna waxa ay ahayd meel ayada dhan nooc kale ah. waxaan arkay saaxiibkayga amjad iyo 2 wiil oo biskoolado wata. markiiba waxaan dhahay, saaxiib waan ka xumahay, qalbigaaga waxaa ka buuxsamay xumaan, aad ayaana uga xumaaday maadaama noloshaada aad burburisay. waxaad na gashay nolol
cabtooynimo ah, aadna ayaan ugu xumahay. Waxa uu igu jawaabay, alla maxaad dabaal tahay? Hadda meeshani waxaad u timaaday si aan kuu dilo. Macquulna maahan adduunkani inaa adiguna xur ahaatid, anigana ay booliska i bursadaan. Intaasi kadib waxaan ogaaday noloshayda in ay halis badan ku jirto. Waxaana dareemay daqiiqado cabsi badan, laakiin nasiib wanaag waxaa si kadis ah hal mar ku imaaday booliska. Gawaarida booliska ayaana hareereeyeen Amjad iyo saaxiibadiisa. Sidaas ayuuna qorshahaygii igu hergalay oo waxa ayna ku dhaceen gacanta booliska. Amjad markii dambe waxa uu ogaaday in uu ahaa qorshahani siriq aan hore ugu dhigay asiga. Ugu dambeyntiina waxaa loo kaxeeyey dhanka iyo saldhigga booliska. Haddaba asxaabay, waxaad ogaataan Amjad iyo asxaabtiisaba in ay mari doonaan waxa ay muteystaan, balse adinka waxaana lagaaga baahan yahay mar waliba in aad ka taxadartaan qofka aad saaxiib ka dhiganaysaan. Macnaha saaxiibtinimada maahan saaxiibka in aad wada socotaan muddo sanado ah, balse saaxiibka waxaa la doonayaa in aad noqotaan qof aad isku fahmi kartaan, sidoo kalena waxyaabaha qaarkood aad ka wada tashataan. Haddaba waxaan idin leeyahay ka fogaada saaxiibada xunxun, sababtoo ah beri ka maalin baxar ayay faraha ku gelinayaan. Intaan kaga kulmeyno qiso noocan oo kale ah oo aad u xiiso badan, waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo. Maca salaama.